waxaa sharaf inoo ah maanta inaan garoonka aadan cabdulle aan ku soo dhaweyno halyeeyin dhalinyaro muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalka doorbida inay dib ugu soo noqdaan kuwaasoo ka soo noqday dalka Liibiya oo run ahaantii dhibaato badan ka soo gaartay intay tahriibka ku jireen iyo intay xabsiyada ku jireenbo waxaa inoo suurta gashay alxamdulillaah annagoo dawlad ahaan hal meel ka soo wada jeedno xafiiska madaxweynaha xafiiska ra'iisul wasaaraha wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda amniga iyo dhammaan qaxootiga qaranka iyo dhammaan hay'adaha ka shaqeeyo hijrada gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa safaaradda Soomaaliya ee dalka Liibiya gaar ahaan magaalada Tripoli danjiraha Cabdi Aadan konsulka iyo fair secretary-ga oo run ahaan shaqadan 99% soo qabtay dadka xabsiyada ugu tagay soo diiwaan geliyay hay'adda IOM u gudbiyay waalidiinta la hadlaayay waxaan aad uga mahad celinaa inay dantoodii qaran iyo tii Soomaalinimo iyo tii Islaamnimada ay gudteen maanta waxaa inala joogay wasiirka arrimaha dibadda waan uga mahad celinayo sida safaaradihiisa iyo maxaa la xubnaha kala duwan ee wasaaradda arrimaha dibadda arintan uga wada shaqeeyeen waxaa kaloo aan mahad leh baarlamaanka oo maxaa la dhahaa xildhibaano badan arintan ka soo wada shaqeysay oo inoo suurta gashay hataa inaan la xiriirno reeraha dhalinyarada oo dhibaatadooda ay inoo sheegeen maanta waxaa soo noqotay 167 dhalinyaro intaas in ka badanna waxay wali ku xiran yihiin dalka Liibiya oo ina soo wacayo maanta dhalinyarada soo noqdeen waxay inoo sheegeen in dhalinyarada badan wali ay xiran yihiin marka shaqo badan laakiin waa dawladda ay ka dhan tahay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan xukuumadda in muwaadin kasta Soomaali oo dalka dhibaatadiisa dib ku haysato in loo gargaaro